السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيغا maanta waxaan sameynayna body scrub. waxaan ka sameynayna shea butter and sugar body scrub weeye. marka kusoo dhawaada daawasho wacan. marka waa kaas fiiriyada gacantan ayaan mariyay oo markaan soo sameeyay wax yaran ka soo jaray oo soo hormariyay waaye. marka maasha Allah waa very smooth, waa jilaac una ku nadiifinayo kaas aan soo dhaqay. kan gacanta aan soo mariyay ka soo dhaqay maasha Allah qurux very sida gacanta u dhalaalayso ma smooth maasha Allah jilaac hada jilaac kaaga dhigaya jirkana soft uu kaaga dhigaya. marka adigoon marsanin wax la isku cadeynay bilaayo ayaad wax organic oo ma garanaysa dabiici ayaad marsan kartaa oo wanaagsan oo gurigaada hadana aad ku sameysan kartaa. marka maanta hada waxaan ina tusayaa intii oo ma garanaysa alaabihi aan ka sameeyay meesha waxaan u yeelo honey waa adagtaa waa organic. marka saliidaasna waan ku daray almond shea butterki way kan hada tan coconut oil way iyo almond iyo sugar brown sugar ayaan ka sameeyay waxa way mida budada ma garanaysa oo lagu talagalay scrub-yada inta laga sameeyo hangalada jirka aad bay ugu darantaa kale laakiin jirka waa iska caadi laakiin wajiga uun ba garanaysa hash to face ka wajiga aad bay ugu darantaa laakiin jirka waa maasha Allah kaaga dhigaysaa. marka hada coconut oil-ki iyo shea butter-ki ayaan melt graynayna ama dhalaalinayna wada sida aad u taqaanid waa kan hada uu soo dhalaalay maasha Allah. marka nala socda fiican u melt garay marka inaad butterka marka hore aad iyo inta isku qasbid baan ku daray inta isku qastid waa ma garanaysa fiican tada sokorta ku darin. almond oil-ka ayaan hada cabirayna ku darayna markaas wax yar baan looga baahnaa maadaama shea butterka aad soft u yahay jirka u fiican yahay kana waa teeto malabkana waa la ogyahay ilaa weligeed ma soo isticmaali jirnay malabka aan garanaynaa maasha Allah sidoo jirka khatarta uu qurxiyo ka laba qaato malab ayaan ku darayaa malabka maasha Allah markaas qaadadii labaad ayaan ku soo daray. marka hada waa kana xoogaa yar ayaan dhigay marka kululeyso isla markiiba ma sameyn kartid hadii kale time ayay ku qaadanaysaa. xoogaa yar ayaan dhigay markuu yara qaboobay ayaan markaas sameeyay sidii cream ahanta ayaan u sameeyay cabaareen aan sameynayo walaaqayo ma garanaysi. marka hada sokorta ayaan ku daraynaa waxa uu jeedaa cream baba u malaysaa ma garanaysa waxa kii hoos u jeedaa sida creamka kaas cabaareen soo sameynay kamarada mana ka duubin laakiin waan soo sameeyay. marka waxa sokorta aan ku daray maasha Allah tabarakallah ila khatar oo noqonaysa maasha Allah dad intaas jirka marsatay qurux maasha Allah jirka dhan nadiif daawo iyo balaal isku cadeeyo oo dhibaatada daawadan waan ka soo hadli doonaa dhibaatada daawada laga qaado iyo cudurrada laga qaado iska daay walaalada qaali daawada iska dhaafa waa dhibaato. marka adiga waxyaalo dabiici samaysan kartid oo isku qurxin kartid marka daawadaasi dhib badan iyo cudurro badan ayaa laga qaadaa mar dhan topic dhan daawadaas ooga hadli doona insha Allah. aniga waan akhristay waxan waan garanayaa daawooyinkaas iyo balaayada dhibka ka iman karo marka iska ilaaliya waxyaalahan guryaha iskaga sameeysta hada kan maasha Allah saxan baan ku soo shubay wakaas maasha Allah wakaas hada inta gashan baad gurigaada baad adigu iska sameysan kartaa qofna ugama baahnid adaa sameysan kartid maasha Allah. jirka dhan intaad marsato nadiif khatar jilaac jirka soft ka dhigaya maasha Allah waa aad buu wanaagsan yahay walaalada qaali. marka isku dadaala daawooyinka iyo waxan oo ma garanaysa ay hada barihan dambe la marsado iska ilaaliya aad buu u dhib badan yahay waxaas marka aad iskaga ilaaliya walaalada wax kasta gacantiina ku sameysta wax aad ogtiin sameysta wax organic oo garanaysiin sameysta.